una hor istaagay kulamo gaara oo la sheegay saraakiisha ciidamada Israa'iil inay lahaayeen. haddaba sidee wax u jiraan gantaalkan muxuu sameeyay awoodiisa intee la eg tahay tafaasiil ku saabsan gantaalkan sijiil iyo waxa uu ka samaysan yahay inuu barnaamijka ku faahfaahinayna. waxaa kale barnaamijkaanu ku soo gudbin doonaa Ali Larijani oo ka mid ah madaxda sare ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan oo sheegay in ay doonayaan cadawga Iiraan in ay qorsheeyaan wax la mid ah 11 Sebtembar weeraradii ka dhacay Mareykanka markaana dusha laga soo saaro Iiraan. waxaana uu sheegay inuu hadda ka digayo in Iiraan aanay shacab masaakiin ah weerari doonin. haddaba maxaa keenay arrintaas siyaasi ka shaqaynaya in dad fara badan oo caalamka ku nool la laayo iyadoo Iiraan loo saarinayo? sheekadii waa soo kululaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo isaguna sheegay inaanu jirin wax wada hadal ah iyo cid ay wada hadlayaan iyo xabad joojin intaba. Mareykan meelaan isaga soo haraynaa iyo Iiraan taagan tahay. wararkaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa iyo xaaladihii ugu dambeeyay dagaalada iyo weerarada la isdhaafsado khasaarihii ka dhashay. haddaba barnaamijka waxaan idinkugu hayaa wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay dagaalka ka soconaya bariga dhexe. Iiraan iyo Mareykan iyo Israa'iil halkee kala marayaan? yaa nagta laga saaray maanta? wararkaas ayaanu barnaamijkeena ku faahfaahinaynaa gabi ahaantiis. laakiin intaynan barnaamijka gelin caawa waa 27 bisha barakaysan ee Ramadaan. waa habeenkii culimada qaar ay sheegeen in ay dhici karto laylatul qadriga inuu ku jiro. haddaba caawa waxaanu isfaraynaa aniga iyo asxaabtaydaba inaynu si gaar ah habeenkan uga faa'iidaysano u cibaadaysano ilaahay u barino mushkiladaha iyo dhibaatada adduunka ka jira in ilaahay uu qaboojiyo dadka muslimiintana uu cudud iyo awood iyo midnimo siiyo. soomaalidana u ducayn ilaahay iyadana dhibaatada iyo abaaraha iyo mushkilaha haysta in ilaahay uu ka saaro. marka dardaarankaasuna waa dardaarankeennii caadiga ahaa aan isfaraynay waxa wanaagsan waxa xun aan iska reebayn. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa Iiraan maanta waxay isticmaashay gantaal la yiraahdo sijiil. sijiilkan weeraradii hore ama dagaalkan kii ka horreeyay 12 maalmood kaliya socday maraa la isticmaalay. dagaalkan 15 maanta socda 14 kii maalmood hore wax isticmaalay ma jirin. maalin walba gantaal cusub la soo baxaya. sijiil marka maxaa tahay? sijiilow maxaa tahay laga qayliyay meeshuu ku dhaco haaf dhan u goostaa lagu leeyahay. haddaba tafaasiisha sijiil ayaynu galaynaa. telefishinka Al Jazeera ayaa qoray wuxuu leeyahay telefishinka Iiraan waxa uu baahiyay muuqaallo iyo sawirro muujinaya in ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay rideen maanta gantaalka la yiraahdo sijiil oo blasti ah. gantaalkaas waxaa la sheegay inuu ahaa markii ugu horreysay tan iyo markii dagaalka uu bilowday. waxaa sidoo kale la sheegay in la adeegsaday gantaalo kale oo noocooda uu yahay kharmashaar oo markaa iyagu madaxyo kala duwan leh. qaarkood waxay wataan madaxyo gaaraya 2 tan culayskooda. waxaana la sheegay howlgalka maanta loo isticmaalay sijiil inuu ahaa mawjadii 54aad ee howlgalka Al-Wacd As-Saadiq 4. haddaba marka sijiil awoodiisu intee la eg tahay muxuuse kaga duwan yahay gantaalaha kale? tafaasiil kooban oo ku saabsan gantaalkan Iiraan maanta ay isticmaashay waxaa la yiraahdaa magaciisa sijiil. waxa uu gaarayaa masaafo gaaraysa 2000 ilaa 2500 oo kiiloomitir ayuu wax ka dilayaa. surcada ama orodkiisa habka lagu cabiro gantaalaha wuxuu u dhaxeeyaa 8 ilaa 7. miisaanka culayskiisa wuxuu u dhigmaa ama waxa uu gaarayaa 1000
qaarkoodna 1500 oo kilogram oo walxaha qarxa way marka gantaalkan marka waa gantaalkaas maanta marka mawjadii ama dufcadii 54aad asaga la isticmaalay dhowr xabba oo asaga ah Israa'iil ugu dhuftay waa la yaabay waxaaba ka daran sidan u socda gantaalkan sijiil kale leeyahay waxa uu u socdaa sida maarti masko kale ay u socdaan wule saas u socdaa wax bini aadan hor istaagi karo gantaala difaacana ma jiraan maanta marka waxa gantaalkan loo isticmaalay sida xogaha gaarka ay sheegayaan si qarsoodi ah ayaa waxa rabay inay u shiraan nimankan golaha wasiirada nin walba godaa laga soo bixiyaa meela laga soo bixiyaa godadka hoostooda marka beelihii ay ku shiri lahaayeen qaar ka mid ah ayuu gantaalka horta ku habsaday ma ku jireen wasiirada mise kuma jirin waa baab kale laakiin gantaalkan maanta waxa loo soo bixiyay in maartay dukum daakum laga dhigo nimankan markii gantaaladu ay dhaceen oo dhulku isla gariiray ayaa warbixin lagu sheegay u fiirsada isagoo hadlaya warbixin lagu sheegay Netanyahu inuu soo saaray ayuu qof walba uga digay inuu meesha godkiisa ku jiro godkaaga ku jir ha soo bixin maanta oo dhan godkaas ku jir shacabkii wuxuu leeyahay godadkiina ku jira xaaladdu ma fiicna marka gantaalku sababtaas loo isticmaalay marka video la baahiyay oo ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iran gantaalkan sijiil oo hawada loo dirayo Israa'iil dhankeeda aan daawan waataay marka waan filayaa inaan halkan aynu ka boganay marka gantaalahaas culus way ku maqan yihiin si fiicanana loola helay goobihii aynu ku ridnay leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka Iran waayahay qodobka kale ee barnaamijka Ali Larijani waa ninka xogayaha ka ah golaha amniga qaranka Iran mas'uuliyiinta sare ee Iran ayuu ku jiraa saaxiibadii ayatullahigi dhintayna waa uu ka mid ahaa ragga wadanka xukuma ayuu ugu sareeyay ku jiraa Ali Larijani marka war la yaab loo sii daayay maanta wuxuu leeyahay waxa la qorsheynayaa weerar dad badan lagu laayo oo ajnabi ah Mareykan ha aadeen ama Yurubiyan ha aadeen in la laayaa la rabaa waxaana ka shaqeynaya Mareykanka iyo Israa'iil ka shaqeynaya wixii dhacay 11 September ee Mareykanka lagu weeraray diyaaradihii guryaha lagu dhuftay dad badan oo halka lagu dilay waxa soo kala la soo wadaa wiil waa ka warhaynaa sirdoonkeena way hayaan inay dad badan dhexdooda inay laayaan ay rabaan ay yiraahdaan marka Iran ayaa waxa kan weyninka badan dadka badan oo reer galbeedka lagu laayay samays taa marka waxay keenaysaa in cadaawad kale Iran loo abuuro dawlado reer galbeed dagaalka soo galaan hatta hub culus lagu dhufto Iran marka wuxuu yiri adduunku waxa uu sheegaynaa nimankan annaga waa ka horeynaa hadday dadkooda iyaga iska laayaan annaga nooma soo saari karaan dadkoodana ha ogaadeen oo dhahay nimanka shirqoolkaasi maagan yihiin 11 September wixii Mareykanka ka dhacay daarihii la burburiyay sheekadii kala soo socotay haddaba marka aan tuso Ali Larijani waxa uu ka digay mu'aamarad soo socota oo la mid ah 11 September oo cusub waxaana lagu eedeyn doonaa Iran u sheegay
marka wuxuu yidhi annagu haddaba waa la soconaa arrinkaa haddii la sameeyo nimankan ma naxayaanuu yidhi dagaalka waa ku jabeen marka waxay doonayaan dadkooda inay laayaan ay rabaan weliba maraykanka iyo yurub iyo in la laayaan rabaan yuhuudda lama taabanayd maraykankan waa qaylinayaan hadhow Trump dagaal aan gelisay marka dagaalkii ku sharciyana wuxuu leeyahay nimanka waxaynu ka hortagnay waxa inay sameeyaan marka sheekada marka waa la isgaadayaa ogaada adduunkan dadkiisu laynaya nik siyaasiga wuxuu ka naxay male marka hawsha halkaas maraysa dhanka kale waran nuxnuxa socday saacadihii la soo dhaafay warbaahinta reer galbeedku waxa laga yaabaa in wada hadallo bilowdaan xabad joojin laga hadlo kan Iran waxa hadlay ninkii hawsha u qaabilsanaa wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi ayaa qaabilsan wixii wada hadala wuxuu yiri xabad joojinna ma rabno wada hadalna ma rabno Maraykan iyo Israa'iil darbigaas tageynaawi laakiin waxa uu qarsoon wax caadi ma aha Iran tu wax caadi ma wuxuu leeyahay xabad joojin iyo lagama hadli karo wax kale wada hadalna iska badhaaf xabad joojin aan bijirin wada hadal intuu ka imaana wada hadalna ma jiro marka wuxuu yiri Maraykan waxaan rabnaa inaan darbiga isla tagno asaga Israa'iil meel inaan uga soo harnaa rabnaa u leeyahay ninka dhaha waa ninkii wada hadallada qaabilsanaa ugu Abbas Araghchi macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaysan hawsha shaqaynaynin haddaba marka wararkii ugu dambeeyay haddaan barnaamijkeedii la wadaago Araghchi waxa uu sheegay inaanay dalbanin wax xabad joojin ah iyo wada hadal wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa u sheegay channelka la yiraahdo CBS ee dalka Maraykanka laga leeyahay in Tehran aanay codsanin wax xabad joojina iyo wax wada hadal ah annagu waxaynu diyaar u nahay uu yiri inaynu nafteenna difaacno oo marka ilaa Maraykanka aan darbiga isla tagno oo ay ku qancaan dagaalka inuu socdo oo macnaha dagaalka socda ay soo qaadeen inuusan sharci ahayn wax guulana aysan ka gaarin ilaa Maraykanka afkiisa intaas uu ka keeno waa soconaa dagaalkii aan ku qaadnay Iran sharci darro ahaa wax guulana kama aanan gaarin ilaa labada qodob afkooda ay ka soo baxaan waxa la joojinaa ma loo taagay ninkaan caadi ma qodobka isagu halkaas ka gudbayna qodobka kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanayna wuxuu yahay wasiirka gaadiidka Maraykanka waxa uu yiri Maraykanku way diyaariyeen maraakiibtii raacileed maraakiibtii ay furaysay Hormuz u fiirsadaya wasiirka gaadiidka dhahay maraakiibtii hawlgalkii aynu maraakiibta ugu furayna Hormuz waa diyaarinay mar dhow bilaabana macnaha annaga soo marayna maraakiibta annaga gudbinayna Iran waxba ma daqiiqada kama soo wareegana lagu leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ayaa ka daba hadlay oo Maraykanka wuxuu leeyahay waxaas wax ka jira ma jiraan saaxiibaan u raadsanayna meeshan kaligeena waxba kama qaban karno wasiiradii waa kala hadlayaan Trump caaw wuxuu ku hadlay bari wax kale ku hadlaya sheekadii khalkhalaabay oo marka meesha ka jiraan lagu leeyahay haddaba aad tuso Al Jazeera oo warbixin ka qortay wasiirka gaadiidka Maraykanka wuxuu yiri waxaynu diyaar u nahay inaynu markaa ammaan gelino oo ta'miin siino maraakiibta maraysa Hormuz wasiirka gaadiidka ayaa wuxuu sheegay isagoo la hadlayay shabakadda Fox News in Maraykanka ay diyaariyeen qaabkii ay maraakiibta nabadgelyo ugu gudbin lahaayeen Hormuz iyadoo dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee Maraykanka Deutsch ninka la yiraahdo isagana uu sheegay in Washington ay raadinayso sharikadeeda ama saaxiibadeeda si markaasi looga shaqeeyo inay ka qayb qaataan xorriyadda maraakiibta maraysa halka in la wada ilaaliyo waa laba wasiir oo Maraykan ah midka gaadiidka wuxuu leeyahay annaga marsiinayna diyaaranahay been badana midka kale wuxuu leeyahay waa beetis shurakadeena raadinayna shurakada waxa saaxiibadeena aan la raadsanayna meesha kaligeena annaga ma furi karno